وإن كفلان آباها كلية أي عرورتيسا قبيلة تهي هورتا جينيغا سوماليات قبيلة مالية هي سيدا دادكا سوماليات أو كالي مسد دمانتين وحاتيهين هل قبيل أو جيني ومحسن تهي جينيغا guud ahaan waa laba umadood oo waaweyn oo la kala dhaho ilmo jin iyo bah ibliis kadib waxa ay u sii kala baxaan 10 qabiil 10ka qabiil ee jiniga iyo ibliiska waxa la kala dhahaa qulu hina ifrit jan nasnas marid balis shiqi shaydaan iyo silad farac ibliis waxa ku abtirsada shaydaan marid shiqi iyo qulu farac jinina waxa sidoo kale iyagana ku abtirsada inta kale sida hina jan ifrit nasnas balis iyo silad aniga ahaan waxaan ka dhashay qabiilka silad oo ah qabiil jiniga kamid ah ee ugu dhow dhanka insiga muuqaal ahaan iyo dhaqan ahaan waana qabiilka kaliya ee insiga ay guursan karaan hadii ay timaado inay is alfadaan waan gartay rayma adiga weliga ma ka fikirtay inaad xiriir jacayl la samayso qof insi ah nabtii kama sheekayn karo xanuunka iga soo maray jacaylka aan u qaaday nin Soomaali ah oo degan Muqdisho gaar ahaan xaafad u dhow xeebta Geelaq jawaabtan gadaal ayaan iga weydiin doontaa balse waxaan ku sheegayaa jacayl aan u qabay darteed xitaa waan isku dayay inaan xilliga uu xaaskiisa la joogo aan inta maskaxda ka mashquuliyo kadibna iyada jirkeeda ugu dul seexdo si uu iyada bedelkeeda aniga ila raaxaysto mushkiladu waxa ay noqotay mar walba iyada ama isaga mid baa cuudi bilaysta aniga indho madoobaad